waa 3 tan oo kalluun ah oo ay soo jilaabteen ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland kadib muddo 6 cisho oo ay ku maqnaayeen xeebaha kala duwan ee dalka waxaanay doontaasi de kalluunkaasi ay saaka ku soo xidhatay saldhigga koowaad ee ciidanku ku leeyahay magaalada Berbera saraakiisha kala duwan ee ciidanka ayaa ku hawlan waqtigani rogista kalluunkan aadka u tirada badan ee ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland kaas oo ay dib uga iibiyaan suuqyada kala duwan ee kalluumaysiga si oo lagu horumariyo saldhigyada kala duwan iyo ciidanka waxaan halkaasi ka hadlay kalluumaysigan ay bilaabeen ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil Haruun Siciid Cali waxaan uu sheegay inay sii wadi doonaan kalluumaysiga amba hawshan ay ciidanku hadda waqtigan xaadirka gacanta ku hayaan oo ah wax soo saarkii ciidanka ilaalada xeebaha wax soo saarka ciidanka ilaalada xeebuhu muu bilaaman maanta laakiin wuxuu soo socday muddo dheer oo bila ah oo ahayd waqtigii uu noo iibiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland doontan hadda aanu kalluunka ka gurayno oo kadib markii uu doonta noo iibiyey annaguna aanu handisnay inaanu la nimaadno shabaag aanu wax ku soo saaro kagana shaqaysano baddayada waqtigii uu soo baxay xanuunkan dadka aafeeyey ee koroonuhu waxaanu garannay amba taliyaha iyagoo amar nagu siiyey in aanu samayno annagoo ilaalinayna gudanaynana waajibaadkaygii badda inaannu soo saarro wax soo saar samayno badda ka shaqayno annagoo ilaalinayna haddana aanu shaqayno wakhtigaasoo ahayd aan horay biidhiha uga sii daynay annagoo soo saaray kalluun ilaa 2 tan iyo xoogaay ah maanta waxaan halkan ku haynaa kalluun 3 tan kor u dhaafaya oo ay ka soo shaqeeyeen ciidanka ilaalada xeebuhu gacantoodana ku soo qabteen iyagoo waajibaadkii gudanayay waajibaadkoogii shaqo isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saaxil Axmed Xaaji Cabdilaahi Axmed Nooje ayaa isaguna wax lagu farxa ku tilmaamay kalluunkan aadka u tirada badan ee ay soo qabteen ciidamada ilaalada xeebuhu waxa uu sheegay in ay wasaarad ahaan ay kaalintooda ka qaadanayaan dhiirigelinta iyo taageeridda ciidanka dadku hadday moodayaan ciidanku inay ilaalada uun ku shaqeeyeen badda ilaalinteeda wax soo saarka kalluunkana way ka qayb qaataan iminka ganacsatada anigu aan arkay in 3 tan soo saara ma jiro ka ugu badan 900 kiilo soo qaada 800 kiilo saara marka waa faa'iido oo waxtar mucaawano loo geystay oo markan ka soo qaaday iminka shabaagta oo kale maayarka magaalada ayaa kaga caawiyay intaasoo shabag ay ku soo kalluumaysteen insha Allah wasaaradda kalluunka insha Allah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiguna wixii mucaawano ciidanka ay siinayso way la garab taagan tahay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in ay muhiim u tahay nabadgelyada guud ee badda iyo guud ahaan dalka kalluumaysigan ay bilaabeen ciidanka ilaaladu waxaana uu sheegay in maamul ahaan ay gacan siin doonaan isagoo sidoo kalena sheegay in sharciga la marin doono cid kasta oo ku soo xadgudubta biyaha dalkan Jamhuuriyadda Somaliland markuu ciidankii badda ku jira xeebaha ilaalinaya uu saas oo qabsanayo kuwa kale ee muxuu ahaa ama kalluumaysatada ama shacabka kale ee khayraadka ka faa'iideysan karana waxaan ku dhiirigelinayaa in iyaguna sidaas oo kale ay khayraadkooda uga faa'iideystaan midda kale ee jirta waxa weeye badda dadka waanu ka joojinay imka qof aan Somalilander ahayn oo badda gali kara ma jiro dadka kale ee meelaha kale nooga imanaya waanu iska joojinay waxa weeyaan amniga ku xiran in cid aanan garanayn oo aanan backgroundkiisa haynin oo meel uu ka yimid aanan garanayn in aanan u diran shaqo li'aana amniga iyo dadka badda ka shaqaysanaya wax isku xiran marka aad iyo aad baan ciidankana uga mahadcelinayaa shaqada fiican ee qabtaan saraakiil kala duwan oo iyaguna ka tirsan saldhigyada ciidanku ku leeyahay magaalada Berbera oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin kalluumaysigan ay bilaabeen ciidanka ilaalada xeebuhu waxaan u hambalyeeynaya qoodii inamadii doonta iyo madaxdii dirtay intaba waan mahadcelinaynaa waana mahadsan yihiin waxaa ka muuqda meesha cilmigii iyo caqligii ay nagu hogaaminayeen madaxdayada wax kaloo u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga koowaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Haruun Siciid Cali oo runtii taliye macquula oo hogaamintiisa intii uu saldhigayay tallaabo ballaaran uu qaaday halkani waa mid ka mid ah saldhigga ciidanka ilaalada xeebaha ee ku yaala magaalada Berbera gaar ahaan goobta loo yaqaan raxanta uu ka soo degaayo kalluun gaadhaya ilaa 3 tan oo ay ciidanku ka soo qabteen
xeebaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay howlgalladan kala duwan ee dhinaca wax soo saarka kalluunka ay bilaabeen ciidanku intii lagu guda jiray xanuunkan coronavirus ee dhaqaaluhu hoos u dhacay waxaana ciidanku ay dib uga siibiyaan kalluunkani marka ay soo qabtaan suuqyada kala duwan ee magaalada Berbera iyo guud ahaanba dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga Berbera waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan mashaariicdan dhinaca kalluumaysiga ee lagu tababarayo sidii uu ciidanku wax ula soo bixi lahaa Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera